qorshe ganacsi oo si wanaagsan loo farsameeyay ayaa ku haga marxaladaha kala duwan ee bilowga iyo socodsiinta ganacsigaaga. Barbilaabida ganacsi guuleystay iyo wadooyinka loo maray ayay ku kala duwan yihiin dadweynaha ka faalooda ganacsiga. Dhalinyarada isticmaala barta ay Soomaalida ku xiriirta ee social media ayaa waayadan dambe waxay abuuraan ganacsiyo kala duwan sida goobo dalxiis, portrait, cosmetics-ka, saaluunka gabdhaha isku qurxiyaan iyo ganacsiyo kale. Haddaba caanimada wadamo u noqon karta abuurida ganacsiga iyo shaqo la'aanta dhalinyarada. Xiriir intee le'eg ayaa ka dhaxeeya? Ma abuuri karaan ganacsi guuleystay iyagoo aan media isticmaalin? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ifraax ayaa iyadu qabtay in caanimada iyo ganacsiga uu xiriir weyn ka dhaxeeyo. qofka marka uu caan yahayna ay ku xirmaan customer badan. in caanimada iyo ganacsiga xiriir weyn ka dhaxeeyo sababtoo ah qofka markuu caan yahay bulsho badan ku soo xirmayso because caanimadiisa dirtiisa marka xiriir badan ka dhaxeeyo asiga caan ah ganacsi oo sameeyay kara sababtoo ah qofka markii la yaqaan oo caadi loo yaqaan oo ganacsi meel ka furto uu sameeyay kara ganacsi oo ka baxsan caanimada oo sameeyay kara caanina noqdo waxa ku kalifay qofkan caan adoon noqdo wuxuu og yahay adoon caan noqdo oo wixii saxiisiisto oo bandhig soo sameeysto oo wajigiisa maadaama uu caan yahay wax badan oo u suurtagalay markaas customer fiican oo yeelna marka laakiin marka qofkan oo caan oo san ahayn oo dukaan meel ka furto qof yaqaan ma laha ganacsi caanimada ma kor taagno qof ganacsi oo sameeyay kara kaliya ganacsiga bis hadoo qofka caan yahay oo si fududeeyay leebis marka adiga ganacsi waa sameeyay kartaa waana furo kartaa meel adiga quuqaas ah Muna aadan ayaa iyadu qabto sida tan wadawaa baa aadan ayda si fiican xiriir ku lahaan karaan isdii karaan qofka markuu magac leeyahay markuu soo magac leen isku mid maaha hadda ka mislaani hadda caan meeyahay hadaan meel furto oo ganacsi aan sameeyo inay macna suuq yeesho waxay ugu qaadanaysaa muddo badan meeshan faa'iido ka sugayn waxay iga soo galaysa khasaaro yaana meeshii mis bixinayso customer ma lahan laakiin hadaan magac yeesho meeshii customer ay yeelanaysa dhaqaalaha ka soo galaya way hormaraysaa ma u kacay waa qasab ana hadda mustaqbalka insha Allah rajaynayo laakiin marka hore waxaan rajaynayaa caan soo noqdo kadib baa business furmaya insha Allah Aadan Cabdullaahi ayaa isaga ka ra'yi duwan isagoo qabaynaysan wax xiriir ah ka dhaxaynin laakiin ay sabab u tahay isticmaalida baraha bulshada Soomaalida oo waqti badan ku qaadato sababtana ay tahay dhalinyarada oo shaqo la'aan ah kadibna ay sidaas caan ku noqdaan balse aysan wax xiriir ah ka dhaxaynin abuurida ganacsi iyo caanimada oo ku dhawaay magacaygu Aadan Cabdullaahi Sheekh Aadan Sheerkay maaya lama dhihi karo xiriir ka dhaxay ganacsiga iyo caanimada macnaha dhalinyarada inta badan horta shaqo ma hayaan qofka hadduu shaqo la'aan noqdo waa mashquula wuxuu ku mashquulaa wixii uu sameeyay wuxuu ku mashquulaa marka social media nasiibka u saamaxay inuu caan noqdo marka wax yar soo galaayo intaas yar intayna ka dhamaan ilaa way ka imaan doontaa caanimada ma sii soconayso hadhow waa fashilmi doona qofka hadduu rabo marka intaanu fashilmin inuu ganacsi suubiyo oo wuxuu rabaa noloshiisa oo ku maareeyo ma yeeli karaan sababtoo magaalada shaqo ma taalo way iska dhib badan tahay waa dhibkeeda badan dhalinyarada badanaa waa iska baalgamuundo rag iyo dumar intay yihiin hadda dumar badan oo arkay xaafadaha iska joogo oo waa aragtay dumarkan xan iyo balaayo meelaha la fadhiyaan telefoonka markii loo soo saaray telefoonka wax badan uu haleeyay wax badan uu sameeyay waxyaabaha uu sameeyay iyo waxyaabaha uu haleeyay marka la isku qiimeeyo horta wax uu haleeyaa badan laakiin waxa uu sameeyayna wax badan waa birkee dad badan oo amal haysan amal u noqday oo maantay oo caan baxay oo magac sameeyay lacag sameeyay lacagtaasna hadda waalidkood